السلام عليكم أصحابي waxaan idin hayaa xogo muhiim ah kuwaas oo hadda ku saabsan mas'alo badan ilaa 5 mas'alo oo hadda si rasmi ah loo sheegay inay dhammaan doonaan. Hebel waxa hor u sheegnay 5 mas'al qaar ka mid ah hadda si rasmi ah loo xaqiijiyay inkastoo hadda qaar ka mid ah weli aan la shaacinin sida abaabul oo kale weli warkiis lama soo saarin laakiin kuwii kale oo meeshaas aan ku qaadanay iyo ku kale cusub iyo kuwa kale cusub waa ay isku jiraan. marka intaan u guda galin muuqaalkeena maanta waxaad idinka codsanayaa inaad muuqaalka like inoo saartaan haddii aadan inaga mid ahaynna channelka subscribe dhaho si aad inooga mid noqoto gabalkana u furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee meeshaan kusoo gudbino kaliya xogo cusub ay soo bixi doonaan iyana ku dhaafin adigana midka koowaad waa NG Talaleri ma aqaan inaas dhawaaq sax tahay in kale kaas waxa uu ku dhamaan doonaa xalqada 51 hadda kulli meesha maray ma aqaan oo kaas in la tarjumo uma maleynayba marka kaas waxa ku dhamaan doonaa xalqada 51 waxa kale oo ku soo xigay misalka labaad saaxiib Sisler ama walaalihii la ciilay asigana wuxuu ku dhamaan doonaa xalqada 51 hadda waxa laga yaabaa inuu dhowr iyo 40 marayo balse wuxuu ku dhamaan doonaa asigana xalqada 51 waa idin soo qulaasanaya oo yani waa soo gabagabeynaya warka dhanka kale waxa ku xiga Ashraf Tag ama Ashraf Riya asigana waa la xaqiijiyay inuu sanadkan dhamaan doono waliba maalmaha soo socda kulli bisha Ramadaan inuu dhamaanayso uma maleynay hadda wuxuu maray 34 waxa laga yaabaa asigana 32 inuu ku dhamaado asigana waa la xaqiijiyay inuu dhamaan doono kaliya hadda waxa ka dhiman doorka weyn oo odaga inuu soo baxo oo bacdeen musalkaas asigana uu dhamaan doona markay Ashraf Tag iyo odagaas ay kala dhamaadaan musalkaas ay ku dhamaan doona waxa kale oo ku xiga musal kale waa Riya Gabi ama Riyadeeda kaas oo hadda uu wado aktarka Salaaxudiin iyo Mark soo jilay calanka cas hadii dadka daawada yaqaanay asigana kaas gabagaba ayuu maray hadda waxa uu marayay 9 ama 11 sida rasmiga sheegan waxa uu ku dhamaan doonaa 13 waliba gabagabo fiican ayaa loo sameyn doonaa maadaama ratingkiisana aad u liitay taxanahaasi dadkan inay ka heli waayeen laga yaabo balse aktarka wada jilayaasha ku jiraan dhamaantood waxay ahayn kuwa waaweyn ah sida midkii orahan ku jiray Emre Bey sidoo kale kii walaalihii la ciilay ku jiray oo Caakif ahay iyo waxa kale ku jiray midka Salaaxudiin jiray marka rag waaweyn taxana wala soo keenay laakiin ma aqaan inuu socday kulli daawadayaasha sheekada ay muhiimada saaran kaas asigana waxa la sheegay in lagu soo gabagabeyn doono xalqada 13aad waxa kale jira taxana kale kaas oo asigana hadda la soo gabagabeyn doono midkaasina waa Ismaandhaaf waa sida u yaqaanaan Soomaalida Ismaandhaaf kaas ay asigana waxa la sheegayaa in la soo gabagabeyn doono maadaama uu afar xilli hor u soo socday xilliga afraad hadda oo seasonka afraad midkan ka ayaa lagu soo gabagabeyn doonaa sababaha ugu waaweyn waa inay jilayaasha inta badan kuwii ugu waaweyn ay ka baxeen sheekadan mar walba ay soo laalaabanayso markii ugu dambeysana waxa laga saaray Faatix ninkii jilaaye kaas oo darooga lagu sheegay asigana bartiisa uu ku leeyahay baraha bulshada ayuu faahfaahin balaaran ku sheegay oo uga cabanayo hadda waxa idin sheegay Soomahan shanta musal ee dhamaan lahay sanadkan 2026 waa deegaasatan Soomahan waliba ayagoo si degdeg ah aad ku ogaa kartaan magacyada sababaha ma idin soo raacin laakiin haddii aad doonaysaan mid walba sababtiisa hadda kadib waan ka taxadiri doonaa kaliya adinka in la wadaaga dhanka commentiga mase muhiimadina waa inuu dhamaanayo iyo inuu salimaanaynin wixii faahfaahin mase maaragtay warcelin ahna waxaad noogu reebi kartaan dhanka hoose ee commentiga waliba si qurux badan wixii ra'yigaagana waa inuu la wadaagi kartaa meeshaan waa meeshii aynu ku wada sheekeysan lahayn wixii caloosha ku jirana waa meeshaad ku soo furdaami lahayd marka intaynu kaga kulmayno muuqaalkiisa xiga waxaan idin leeyahay sidaas nabadgelyo mac salaam asxaabay